aad u salaamaya dhammaan reer Galdogob runtii waxaan aan waftigii ka yimid Gaalkacyo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa soo dhaweynta qiimaha iyo qadarinta mudan ee noo sameeyeen walaalaheena reer Galdogob runtii waxaan leeyahay waa taariikh laba ilaabaana waxaan rajaynayaa insha Allah nabadda maanta meeshaan aan isugu nimid kana soo bilaabatay bandiiraley inay noqoto mid dhaxalgal ah runtii ubadka dambe ee dhalanhayaana ay ku daaqaan hadduu Ilaahay idmo waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato waxaan ahay Galdogob oo station iyo laba qol ah baan joogi jiray maagi dambe ayadoo weynaatay baan xoolo ka iibsan jiray maantay waxa aan ku aragnay soo dhaweynta ugaas Maxamed iyo diiradiisu say noo soo dhaweeyeen waxa noo soo dhaweeyeen lama arko waxaan leeyahay Galdogob hal ugu deedaan leeyahay nabadda ka hadlaya nabadda maantay ay laba beelood xuriyeen waa laba beelood oo waligood waa la isku xun jiray marka daayeer baa wuxuu tuwa ka furtay meel la yiraahdo markaasuu wuxuu haystay cambaye liin buu haystay mar alla markii subax yimaado baa loo sacbiyaa saamaka la yiraahdo waxbaliyan lagala baxaa si loo dandanahay meesha maran buu arkay subax dambe wuxuu yiri waa soo jeedaa anigu hadda la arkay iyo saacad waa soo jeedaan rasuulna diri maayo ulama udiin baa u kacay ugaasiya u kacay saadiin baa u kacday waxaan leeyahay garab weyna waa siinayna Galdogobna xarunta nabadda ku magacaabaya aan wadaan odaygii sida tijaarada ahay waxaan mahad Ilaahay baa iska leh waxaan mahad u celinaynaa sida wanaagsan oo beesha leelkas noogu soo dhaweysay anagoo ah beesha Sacad nabadda adduun kure curatay waan rajaynayno ka wiil in la dhaxlo insha Allah taala waxaan ballan qaadaynaa inaan xoojino intii awoodeena cadow hakana magacaygu waa Maxamed Sheekh Saciid gudoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug waxaan joognaa magaalada Galdogob degmada Galdogob oo maanta gelinka dambe aan soo gaarnay runtiina waxaad si diiran halkaas ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Galdogob si diiran walaaltinimo islaamnimo iyo Soomaalinimo ay ka muuqato iyo qalbi furnaan iyo daacadnimada ay u yihiin nabadda galbeedka gobolka Mudug waxaan u mahad celinaynaa bulshada reer Galdogob oo si diiran noo soo dhaweeyay iyo qof kasta oo ka qayb qaatay habsami socodka iyo qabsoomida kulanka galbeedka gobolka Mudug gaar ahaan qaybtiisa labaad oo ku qabsoomaysa degmada Galdogob anaga hadaan nahay dhalinyarada waxaan halkaan u nimid oo horna ugu joognay horna uga shaqeynay in insha Allah taala doorkii dhalinyarada firfircoon aan qaadano bismillaahir rahmaanir rahiim meeshaan maanta waxa ka dhacday wax la yiraahdo farxad qalbiga iyo maskaxduba u farxeen walaalaha ayaga Galdogob waxay noo soo dhaweeyeen si sharaf leh si maaragtay walaaltinimo leh si kalsooni leh anakuna alxamdu shukri waan ka amaal celi doonaa hadaan nahay gabdhihii dhanka kale ee Galmudug magacaygu waa Burhaan Warsamaxsi kana mid ah dhalinyarada gobolka Mudug qaasatan magaalada Gaalkacyo madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug maanta waxaan joognaa degmada Galdogob ee uu ka furmayo shirka nabadeynta walaalaha beelaha Sacad iyo Leelkase oo wajigiisii labaad uu ka furmayo degmada Galdogob wajigii koowaad wuxuu ku soo gabagabay magaalada Bandiiraley dhalinyaradu waxay ka ahaayeen door aad u muhiim ah ay ka qaateen kana waxaan diyaar u nahay sidaas la mid inaan door ka qaadano qof walba door ayuu ku leeyahay nabadeynta dhalinyaradu doorka ay ku leeyahay waxay tahay in maaragtay ay dhigaan qoriga qalinkana ay qaataan isla markaasna ay hirgeliyaan nabadda waxaan aaminsanahay ama ognahay dhammaanteen bulshada Soomaaliyeed 70% iyo dhalinyaro saadarteed majority bulshada maadaama ay dhalinyaro yihiin cidda kaliya oo looga baahan yahay wanaaga iyo horumarka inay horseedaan wadanka waa dhalinyarada saadarteed dhalinyarada baaqan dira waxay tahay inay qaataan doorkooda oo ah inay ka qayb qaataan nabadda iyo horumarka isla markaasna aysan noqon dadkii maaragtay horin lahaa colaadda markii odayaashu ay soo saaraan ama siyaasiyiintu ay soo saaraan nabadda cidda hirgelin lahayd waa dhalinyarada saadarteed dhalinyarada waxa ku bogaadinayaa aan ku boorinayaa inay nabadda qayb ka qaataan